بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن لهم حق علينا يا أرحم الراحمين. أخواتي في الله، أخواني في الله، waxaan jeclaystay inaan mataqaanaayay xoogaa isxusuusino ilaahay subxaana watacaala isxusuusino inaanu ilaahay u laabano oo in markasta ilaahay u oradno. ducadu inay tahay bale xijaab. waa xadiisyo fara badan baa soo ururtay nabiga caleyhi salaatu wasalaam oo mataqaanaayay xitaa xadiisyaa jira odhanaya ilaahay subxaana watacaala uu ka caroodo qofka hadduu ilaahay wax weydiisan waayo oo mataqaana ilaahay ka kaaftoomo. marka ducadu inay tahay dafcal bala tahay oo qadarta ilaah mataqaanaayay ayay difaacdo. ilaahay noo sheegay xadiisyo fara badan nagu ururtay qaab kastoo ilaahay lagu bariyo oo lagu ducaysto inay mataqaanaayay lasoo sharaxay in saacadaha ijaabada xilli ilaahay ducada aqbalayo oo mataqaanaa ilaahay lagu dhowaanayo lasoo sheegay. laakiin loo baahanay mataqaana in marka goortaa la ducaysanayo qalbiga inuu xaadir ahaado, qalbigood mataqaanaa khushuucsan oo taagan oo ilaahay mataqaana ilaahay baryaya oo ka dhab tahay oo ku beegantay weliba waqti saacada ijaabada lixdii waqtiga saacada ijaabada ahayd oo gelinka dambe habeen barhka salaatulti leyl akhiirka ama eedaanka dabadii ama eedaanka iqaamada dhexdooda ama salawaadka maktuubka dabadeed ama marka imaamka masaajidka imaamka saada jumca uu istaagay mambarka uu kacayo ilaahay inta salaada laga dhammaysanayo jumce iyo saacada u dambaysa casarka iyo maxaan ku dhahdaayay yom jumcaha saacadiisa u dambaysa. intaasoo dhan hadday saadifto oo ila beeganto khushuuc qalbigii iyo qalbigii jaban oo ilaahay mataqaana qofku isku duleyn isku dhuldhigayo oo mataqaana ilaahay u tadarucayo ilaahay isku leecinayo oo qiblada u jeedsado oo daahir ahaado oo labada gacmood kor u taago oo ilaahay ammaantiisa ku bilaabo oo ilaahay subxaana watacaala u ammaano kadibna ku xijiyo saliga nabiga caleyhi salaatu wasalaam kadibna uu usoo bandhigtay ilaahay mataqaanaayay xaajadiisii taasoo toobad iyo istikfaar iyo ilaahay mataqaana ilaahay uu galayo ilaahay baryayo uu ku celceliyo su-aasha uu mataqaana isku duldhigo oo mataqaana baahidiisa soo muujiyo oo ilaahay ugu tawasulo magacyadiisii wanaagsanaa iyo tilmaamihiisii wacnaa ilaahay subxaana watacaala ilaahay ku baryo. dhab ay ka tahay ducadaas wuxuu rabaa ducadaasi inaan la soo celinin bay u badantahay abadan. haada ducaa laa yukaadu yurad abadan markuu ducadaas in la soo celiyo maba dhici kartaba. khaasatan buu ku yidhi haddii saadifto ducooyinkii nabiga kasoo rafay caleyhi salaatu wasalaam taasoo loo maray inay ijaabad badan inay ku jirto taasoo magacii ilaahay cadiimka ahaa ay ku sugan tahay sidii kamid xadiiskii uu soo wariyey saxiix ibn xabaan kusoo wariyey buu ku yidhi cabdullaahi bin bureyda aabihuu kasoo waramay saxaabigaas yidhi rasul sal slam wuxuu maqlay nin odhanaya اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أبنك أساس كدو عيساني إلهي كبريي إلهي وحان كودي سنية إنا كمرخاتي كعي إذا ضغطها إلهي كالجرين أديك ماهاني إلهي كاليها صمدك لغو ترسنا ويان كاسو وحنال ألين لنال ألين cid la u dhigantaana inay jirin. kaasuu nabigu yidhi ilaahay wuxuu ku weydiisay laqad sa'ala allah bilismi aladii idaa su'ila bihi acta. magacii ilaahay haddii lagu weydiisan lahaa uu siinayay ayuu ninkaas wax ku weydiistay. waidaa duciya bihi ajaab haddii wax lagu baryana uu ku ajiibo. marka wuxuu ku yidhi laqad sa'alta biillaahi biismihi alacdam magaciisii cuslaa ee weynaa ayaad ilaah ku weydiisatay. xadiiska caleyhi salaatu wasalaam kasoo ururay nabiga caleyhi salaatu wasalaamna wuxuu ku yidhi nabigoo fadhiya meel ayaa kaana maca rasuul sal slam jaalisan warajul yusalli. xadiiska anas baa soo wariyey. wuxuu yidhi nabigu la fadhiyey ninbaa fadhiyo tukanayay kadibna wuxuu ninkaas ku ducaystay. wuxuu yidhi allahuma innii as'aluka bianna laka alxamd. ilaah waxaan ku weydiisanayaa bianna laka binaan adiga wax kuu sugnaatay mahadda laa ilaaha ilaa ant ilaah ma jira la adiga anta almanaan adaa manaan oo dadka mataqana u manaystay nimcooyinkiis wax kasi siiyey badiica asamaawaati warad kii mataqana qurxiyey abuuray kowka abuuray tana jirin mataqana samaawaadkaas dhulkaas yaa da aljalaali waalikraam kii jalaalka iyo haybadda ikraamka deqsimada lahaayo yaa xay yaa qayuumkii hore oo noolaayay ee taagnaayay jirayow. faqaala nabi wuxuu yidhi laqad daca allaha biismihi alcadiim ilahay wuxuu ku weydiistay magaciisii cuslaa. marka labada xadiis waxay soo muujinayaan inuu ilaahay subxaana watacaala aayad allahda kamid allah ismi alacdam waxay ka warratay buu ku yidhi xadiiskii asmaa binti yaziid ee soo sheegtay ee tii ismi allah alacdam magaca ilaahay culus ee weyni waxay ku jirta labadan aayadood ee ah wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha ilaa huwa araxmaan araxiim.
آيات إلهي إنه إله واحدة وكلي واحد كما كل شيء مرت لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلهي كان حريصة بدنا رحمة حريصة قار إن حريصة جود بلها أي فاتحة العمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم labada erey waxa kasoo muuqday inay aayadaasi mataqaanaa ereyadaasi ilaahay ku ugu bariyay ay ku mudan tahay haddana hore usii qaadano xadiiska wuxuu ku yidhi Abu Hurayra kasoo wariyey can Anas bin Malik wa Rabiica bin Caamir nabiga caysa salaam wuxuu yidhi qaala nabigi wuxuu yidhi aladuu biyaada aljalaal waalikraam yacni iska daba lalaadiya oo ku dhegsanaada oo laazima oo daayima oo har iyo habeen ku dhaha carabka alad yani ku celceli weyaan yaa da aljalaal waalikraam yaa da aljalaal waalikraam yaa da aljalaal waalikraam carabkiina mataqaan marka ilaahay la baryayo in aad iyo aad lagu celiyo nabiga calayhi salaam wuxuu oran jiray buu yidhi mar kasta ina nabi kaana idaa hamahu lamr rafaca ra'sahu ila asamaa markii nabigu xameeyo oo ar mataqaanaa soo food saartaba madaxa kor buu qaadaa cerka samadu eegaa wa ida ijtahada buu yidhi fi ducaa markuu ducada ku dadaalana واجتهد لا يمادنا يا حي يا قيوم بورني يا حي يا قيوم يا نبي عليه الصلاة والسلام حديث كان سوري أنس بن مالك نوحيدي كان إذا كربه أمر ذكر أمر كربضي نبي عليه السلام حجنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث بورنتي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام كذا بسم الله الأعظم مكاو حكوا حق صورتي حديث كانوا أبي أمامة وعن نبي كسورني ورنيه وحولي اسم الله الأعظم مقع إلهي أعظم كيقوي نوحكو جدا صدح سورة ضد القرآن البقرة يا آل عمران يا طه وحنا ليلو فالتمسهما بكم قال القاسم إنك صاحب القاسم حيوان دونو وحن كان الآيات والشيء وحتى الحي القيوم الحي القيوم النبي عليه الصلاة والسلام بكم وكي صوري حديث كان سعد بن أبي وقاص ويري دعوة ذنون نبي عليه الصلاة دعوة ذنون نبي يونس عليه السلام دعوة ديسي قورتي وكدو عايست الدعاء ذا اسمه كتشري علوشي حوتك نبي رجع علوشي سو كتشري لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت إله مجري لا أذيك ما هانا سبحانك يعني أمان يوعيبك سليم باتهي واتكوف انتهي عن باري حمان ودن إني كنت أنا وحنها كمذا كو الظالمين لفتو الظلم إدتك الظلم مدى الظالم بانها محكو النبي إنه لم يدعو بهذا مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له موقف مسلم يكمو دعاء سن الدعاء ذاس إلا تاسو إلهي وأجيب مهانه حديث كاسو حصوم وجهنا مكا دعاء ذاس أمهيم تاهي مكا مسلم الحديث وحولي سعدنا النبي صلى الله عليه وسلم وحولي ألا أخبركم بشيء ما ينوش شيئا شيء هداد لا إذا نزل قفك دوك سو دكتوه منكم أمر سو لازم سو فوت صاروا أمر مهم سو وواجهه فدعا به ودوم كوكو بريوه إلهي كفرجه وكربته كفيده قاسو أخري الدعاء أنا خيرنا الدعاء ذنون بأخري ما قرأت مركا أخواتي دعاء آد وفربان تهي ووحو النبي عليه الصلاة والسلام يروحوا هل أدلكم على اسم الله الأعظم بهذا نيدي مقع إله عروس من وشيغا دعاء يونس بويدي قال رجل نبايل يا رسول الله هل كان ليونس خاصة ما يونس بأقاره الدعاء ذاسي وحولي ميارد مقلن بنبي كويل آيات إلهي مكولي هاي فاستجبنا له ونو أتشيبني ونجيناه وكبد بادني من الغم مرقدي همك وكبد بادني وكذلك ننجي المؤمنين ساسو كانوا بدبادنا مؤمنين تورنبا فقف قصة مسلم أبو كويل أو كدو عايسته دعاء ذاسي كدو عايسته oo jiradiisa ku xunuunsada markaan jirada uu buko ku ducaystay ka xunuusan 40 goor ku ducaysta oo ku dhinto ku jirada ku dhinto xanuunka marka hay'adu ku dhinto kaas oo ducada ka wada oo uctiya ajr shahiid bal ku siiya qof shahiid ajrkiisa uu qaata ducada ku wada laazimo وإن برئ هدو كبد بادو كعانو كعافمادنا برئ مغفور الله تيدن بقيس لدافي أيو كاسو متقاناي كعافمادا كذا أنت كنتو تشي دعوين كاسي وحن نفتين فينا وكدر كبورينيا إن الدعاء إله الله بانو كربا جرت امتحان باكرة لكن أخواتي أحبابي ولا الله المسلمين تمكسو تشوكتين وحقولا الله هاي وحويان وحلقة بحصة ودرنا لك عراوة جيرنا ولا مهوران ولا ودمن nin maanta dhintay min bari dhintani saadanba dhintani sanada kadib dhinta waa kiilo dhinto marka aan noqoto xunuunkan iyo kurbadan iyo musiibada maanta dadka soo waajahday gaal iyo muslimba aan noqoto midda ilaahay lagu soo laabanayay tii ilaahay lagu soo noqonayay qof kasta naga mid yihiin nafteeda iyo lafihiinaba aan ilaahay soo laabano toobadna suuxan la helo nimaadno aan nafteena xisaabtanno maanta waxa la malakil mood haduu awal saaisha nagu hayay
oo mataqaana qof soo saacadiisa la sugayay uu gaarsanayay xilliga mataqaana amarka la siinayay ilaa nafta qofka ka oofsal oranayay hadda dee waa la iska noola waa la iska cunay waa la iska cabay laakiin malakimad xilliga maadaama baa la arkaya qofka ama xanuun ku dhinto ama gaadhi ajiiro ama asaxdayo soo kicin ama dee da disho almuhim laakiin imika waxay noqotay cudur laga wada baqanay la leeyahay bilo ku dhacay bilo kugu habsay bilo adna ku dhimatay bilo carruurta cid ku dhimatay bilo familka cid ku dhimatay yacni waa la wada baqanayaa sas baa la wada qaadan marka waa geeri laga wada baqanay imika indhaha la wada taagay leeyahay allah malaha waa tii lagu dhimanayay marka waxaa laga baqanayana inaad ku baraarugsanaatid ilaahay usoo laabatid baa mudan ood ilaahay ka baqatid ood xuquuqda kale xuquuqdooda u celisid ood toobad nasuuxa keentid ood cafi masaamax dadka weydiisatid ood xuquuqda ahligeeda u celisid oo xaqii ilaahay kulaha aad gudatid oo ilaahay cibaado suubanoo saxa oo ilaahay turabay ah aad la timaadid jaanis baad haysataa weeyaan qof kastoo naga mid oo jaanis bayna haysanaa in ilaahay usoo laabano jaaniskaas waxa weeyaan ma is ogin xilligan in waxaan nagu dhici doonay in kale marka haddaad baad jaanis haysatid inaad weli noosheed ogeyn in lagu soo socdo aad saad baqanaysa in lagu soo dhow yahay inta goortahay tabaabushayso oo diyaargaroobo dhankiiyo aakhiro bal wax u sii diro sadaqooyin badso adkaar ilaahay badso qur-aanka usoo noqo toobadkeenkeen ilaahay caafi masaamax weydiiso intaad dulumtay ama intaad xuquuq ka haysatid u celi caafi masaamax dadka weydiiso alays cafiyo ilaahay dikrigiisa carabka lagu badiyo ilaahay subxaana watacaala qalbiga alloo soo jabiyo alloo soo laabto ilaahay baa kurbada ummadda ka feedi kara cid kale kama feedi karto waa la wada siman yahay gaal iyo muslim waa la wada siman yahay laakiin waxaa qurahan ku badbaadan muslimiin haddaynu nahay inaynu inagu rajaynayno ilaahay dhankiisa wax wanaagsan inoo yaalaan haddaynu ilaahay jecelnahay la kulanka ilaahay waa inaynu u diyaargarowno laakiin qofka hadduu ilaahay ka awood geeri ka baqanayo dee ama ka baqan maa ka baqan geeri waa tii ku timaadee intay goortahay diyaargarow walaalkayo walaashaye muslimiinay soomaali maxamedow qof kastoo muslinow ilaahay waxaan baryay inuu dambigeeni kii waalkeenba dhaafo ilaahay inuu naxariisto ilaahay inuu jannadiisa naga waraabiyo kurbadan inuu ummadda ilaahay ka faydo inuu sharka ummadda ka faydo ilaahay cafi caafimaad weydiisananaa kilibkayga shargareeya ilaahay subxaana watacaala waxaan baryay inuu cafi caafimaadna siiyo ilaahay inuu naxariisto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu